munaasabadan ballaaran ee lagu guddoonsiinayay cisbitaalka degmada Salaxley baabuurka ambulaaska iyo waliba qalab kala duwan oo kuwa caafimaadka ayaa waxa kala qayb galay marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwe Aamine Sheekh Maxamed Shirde xubno ka tirsan golaha wasiirada kuwaas oo ay ka mid hayeen wasiirada wasaaradaha warfaafinta waxbarashada wasiiru dawladda madaxtooyada wasiir ku-xigeenka caafimaadka agaasimayaal guud madax kale oo ka tirsan dawladda salaadiin cuqaal waxgarad iyo waliba marti sharaf kale munaasabadaasi oo ka qabsoontay xarunta cisbitaalka degmada Salaxley ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Marwe Aamine Sheekh Maxamed Shirde waxa ay ku dheeraatay qiimaha uu qalabkan iyo waliba baabuurkani uu u yeelan doono cisbitaalka degmada Salaxley iyo waliba sida xukuumadda Soomaaliland ay uga go'an tahay dardargelinta gobolada iyo degmooyinka dalka iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa hadaladeedii waxa ka mid ahaa bisha case Emiraadka oo aad iyo aad u mahadsan inanka Saalax ee ka wakiilka alaabtan inoo keenay mahad fara badan ayaan u naqayaa wasiirkuna halkan ka sheegaysay waxyaabaha fara badan ee ay cusbatalka guud ahaan caafimaadkeena u keenaan maantana ay ugu dambeysay ambulaanskan iyo qalabkan qaaliga ah ee ay u keeneen cusbatalkan Salaxley waxaan mahadnaq ballaaran baan idin celinayaa waanaanu idinka guddoonay ilaahayna dadkeena ha ku anfaco qalabka iyo ambulanska qaaliga ah gudida caafimaadka ee degmada iyo cusbatalka iyo sidii ay wasiirnimada sheegtay waxaan ku guubaabinayaa aan farayaa inay alaabta ilaaliyaan inay aad iyo aad u daba socdaan inay sidii loogu talagalay u isticmaalaan oo dadkeena uga faa'iideeyaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo barakeeyo wixii mustaqbalka aan siisana insha Allah bismillaahi kariim sidaas aan u ilaashan doonaa oo u xanaanayn doonaa aad iyo aad baa u mahadsantiin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cikus oo isaguna ka mid ah madaxdii munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday kaalinta muhiimka ah ee qalabkani ka gali doono adeegyada caafimaadka ee cisbitaalka degmada Salaxley waana uu ku dheeraaday sida ay xukuumadda uga go'an tahay sidii loo dardargelin lahaa guud ahaanba kaabayaasha aasaaska waa nolosha sida caafimaadka waxbarashada iyo waliba adeegyada kala duwan ee hoos yimaada wax badan baa halkan laga sheegay laakiin waxaan idiin sheegayaa dhammaan waxa soo dhami waxa ay ku suurtagaleen gacan qabashada iyo gargaarka ay xukuumadda Soomaaliland u fidisay waxa u dambeysay alaabta halka taala xukuumadda Soomaaliland markii ay dekada soo gaadhay hal maalin oo kaliya bay dekada taalay waxaanay bixisay cashuur dhaaf shilin lagama qaadin waxa la yiri koladay Salaxley ku socoto arintuna samafal tahay sideeda loo gaarsiiyay ka dhaxin madaxweynuhu halkan uu yimi madaxweynuhu dhagax buu dhigay deyrka dhakhtarka waxa gacanta ku haysa oo dhisaysa shirkadii qandaraaska lagu siiyay waana ka diyaar dhinaca xukuumadda ballanqaadkaasna uu fuliyay madaxweynuhu waxaana la siiyay shirkadii dhakhtarka dhistay iyada deyrkana dhisaysa waxaan marka hore u mahadnaqayaa gudayo dabadba dhalinyaro iyo waayeel ururka la baxay gaaroodi oo muddo 13 sanadood gacanta ku hayay iskuulka la yiraahdo Salaxley ee hoyga ee caruurtu waxna ka cunto seexato waxna ka barato ururka gaaroodi waxaad moodaa markii 13 sano kadib inay u baahdeen in la gacan qabto oo la taageero ma doonayna inay hawshii ka baxaan waxaanu doonaynaa sidii ay u wadeen inay u wadaan laakiin ay boorka iska jafaan madaxweynaha Soomaalilandna inta ay dib ka diyaar garoobayaan isaga damaanad qaaday noloshii iskuulka Salaxley ee gacanta ku hayeen wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Marwe Samsam Cabdi Aadan oo iyaduna ka mid ahayd mas'uuliyiintii xafladaasi ka hadashay ayaa dugsiga boardingka ee degmada Salaxley waxa ay guddoonsisay deeq lacag oo loogu talagalay in wax lagaga qabto baahiyaha asaasiga ee dugsigaasi Salaxley waxbarashadeedu aad bay u wanaagsan tahay waxa ka dhiman waa imika iskuulka boardingka oo runtii ururka gaaroodi caawin jireen ururka gaaroodina culayskii ay saareen
caafimaadka iyo wadooyinka marka maanta wasiirka warfaafintu waa kii idiin sheegay madaxweynaha ugu tagnay maadaama aanan budgetka ugu darin marka lacagtii labadan bilood ay ardayda wax loogu iibin lahaa oo $3,000 maanta aanu sidaan ku wareejinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland waxay si rasmi ah deeqdaasi lacagta ugu wareejisay guddida horumarinta ee degmada Salaxley wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Marwe Nimco Xuseen Qowdhan oo iyaduna xafladaasi ka hadashay ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Salaxley guud ahaanba u soo jeedisay in baabuurkaasi iyo qalabkaasiba ay sida loogu talagalay u isticmaalaan wakiilka bisha cas ee Imaaraadka Carabta Siciid Saalax oo isaguna xafladaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday baabuurkan iyo waliba qalabkan kala duwan ee xukuumadda ay guddoonsiyaan kaasoo halkaasi kaga dhawaaqay in qalabka iyo baabuurkaasi uu qiimihiisu gaadhaya $9,450 munaasabadaasi ayaa iyaguna waxaa ka hadlay salaadiin waxgarad aqoon-yahano guddoomiyaha degmada Salaxley iyo waliba ururka garoodi oo kamida ururada ka howlgala degmada Salaxley kuwaasoo ku dheeraaday qiimaha iyo waliba kaalinta muhiimka ee uu qalabkan iyo baabuurkani ka geli doono geesta kale agaasimaha gaadiidka madaxtooyada ee Soomaaliland Abshir Xasan Xaashi ayaa munaasabadaasi kadib waxa uu qalab isugu jira raashin caano bustayaal iyo waliba maacuun kala duwan oo guddoonsiiyay isbitaalka degmada Salaxley taasoo madaxtooyada Soomaaliland ugu tala gashay in lagu horumarinayo isbitaalkaasi